organized ahayn ha yimaadaane bikulli macna alkalima dad si kasta u kala daadsan muslimiin oo dhan ka Soomaali ahaan ka qabiil ahaan ka wadaad ahaan ka nooc walba dad kala daadsan oo arbidaysnay xaqiiqada afraad ee u baahan inaynu fahamnaa waxay tahay ma inaan bislaanin bisaylkii loo baahnaa laakiin waynu iska fadhfadhinaayo mustaqbal majhuul baynu sugaynaa lacalla in bari uun laga dhiso madrasa islaamiya ama mar uun wax la qabto ama cid kale inay wax qabato xaqaa'iqda waxaan ku gabagabeynayaa iyadana hadday sida imika tahay ku socoto oo iyadoo waxaa soo dhami jiraan sida loo daayo mustaqbalka majhuulka la sugo nooc kasta oo saddexdii taaifa ah oo da'da dambe waa da'aad u fog in la soo helo da'aad u fog sida daraaddeed waxaan u baahanay dhowr shay الحلول المقترحة محيطة waxay koow inaynu garanno wadcigeenu mujtamacan ku leenahay aan tusaale yar idin siiyo nimanka reer galbeedka la yiraahdo markay wax baarayaan marka wax la rabo in laga go'aan qaato waxa la sameeyaa marka hore baaritaankaas oo ihsaa'iyaat leh oo taxliilaat istintaajaat wax walba wata baaritaan rasmi ah la sameeyaa baarista dabadeed cidii baaritaanka sameynayay iyo mas'uulka dadkii ahaa markay go'aan ka qaataan baaritaankaasi waxay u gudbaan jaranjarada labaad oo bulshaweynta sida loo qanciyo iclaamkii in markaasi qadiyada tan uu qaadaa dhigo oo la soo faafiyo oo la soo dhigo oo si wanaagsan loo fahmo dabeetana waxay yimaadaan martabada saddexaad oo sidii loo fulin lahaa مثلا aan ku siiyo tusaale مثلا daraasaadka la inagu hayo inagu isma ogin inagu waynu iska soconaa مثلا mujtamaca Soomaaliga markay ka waramayaan wadan kamid ah wadanada reer galbeed ama ceebaa loo raadinayo ama la baarayo ama waxa kan waxay yiraahdaan xagga shaqada marka laga eego bay yiraahdeen waa bulsho aan hawl ka lahayn waxay ku cileeyaan oo ay leeyihiin ma aha dad u diyaar inay shaqeeyaan waxa lagu aqbalay lagu keenay waxa kamid ah in admaan baawar noqoto shaqooyinka fudud ee dadku u baahan yihiin dadka wadanka la shaqooyinka sare haysanaya laakiin de shaqooyinkii kale hoose inaad adigu u qabato oo adna mujtamacu wax ka faa'iido laakiin uma diyaar aha ninka Soomaaliga ah waa mujtamac bay yiraahdaan aan shaqo aqoon xirfad ma leh waa mujtamac bay yiraahdaan luqada aan hore u fahmi karin waa mujtamac bay ku tilmaamaan xataa hay'adiisu bay yiraahdaan suuqa shaqada kama socoto yani marketingka reer galbeedku qof uu yaqaanaa jira ku yaro gadxiira oo taay xidhan oo faal yar soo xidhan markuu shaqo doonayo laakiin ninka Soomaaliga markuu imaado isagoo gadhkiisii wata oo nin Soomaaliyeed oo isa soo taago habarta meesha joogta aanu salaamaynin hay laga yaabo inuu ku yiraahdo laakiin uu gacan qaadan maxaa يعني waxay leeyihiin suuqa shaqada kama aha bay yiraahdaan qof tanaafus ba ka gali kara hay'adiisa aan ahayn bay leeyihiin way madaahirtu iyagu waxay wax ku qiimaystaan bay kamid مثلا xagga tacliimta waxay u arkayaan mujtamac markiisii hore aan tacliim hore wadanin wadanadu yimi bay leeyihiin dadka waaweyn Soomaaliyeed yimi bay yiraahdeen boqolkiiba 70 afka wadanka may baran boqolkiiba 70 bay dhahay afka wadanka may baran carruurtoodu bay dhahay boqolkiiba 80 macallin gaar ah u baahan yahay inay dawladdu macallin kala ku kabto waayo waxa ka lumay daraasaadkii iyo wixii istaba socdiyay wixii oo dhan waxay dhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidata oo afka iyo waxan maba barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka waqtigiisa imanay daraasaadkana xadal ikhwaba igu kaalmeeyay markay timaado waqtigeedii inay uur leedahay ay tiraahdo sanadkan ma gali karayo sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqada dambe loo soo diro inay noqoto waqtigeedii umuleysay wahaluma jara waxay iyagu ku waramayaan يعني كما في عنبي لين بابكن
dhaqankooda ijtimaaciga bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaha la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya waxbuu samaynayaa maalan waxay yidhahdaan false separationka beenbeenta ay yaqaanin baa la leeyahay ma aha dad habiya soomaalidu waxay haysataa waxaan dadkan inay habi yihiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxaynu naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa ay daraasadooda dhammaystiraan oo isqanciyaan mooyaane sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen separation qaldan bay galaan natiijaday gaadhaan muxuu noqdaa maalan nataa'ijtay soo saareen waxaa ka mid ay u arkayaan mujtamaca soomaaliga bay yidhahdeen waa mujtamac muqliqa oo radical ah waa mujtamac xidhan oo radical ah radicalka maxay uga jeedaan waa diiniya waa mujtamac aan la fahmi karin maxay ku sababeeyaan waxay ku sababeeyaan kow waa mujtamac xijaabka xidha bay yidhahdaan qofka xijaabka xidhan le dumarkeenna xijaabka xidhan le waxay u haystaan inay noloshaba qayb ku lahayn xijaab buu xidhan yahay maalan xijaabka markay ka warramayaan innagu qadaayaad waxaanad ogayn baa lagu tirinaya oo adigu wanaaggaagii laakiin iyagu si ay u arkayaan maalan waxay dhahaan booliiska inta laga qaato sharci sawir leh oo xijaaban soomaalidu waa 58% yani marka booliiska la tago ee la baadho faylkiisa ee la baadho wasaa'iqda dumarka xijaaban muslimka kale degan waa 15% waayo marka la yidhaha sawirka keeniyadoo sawirkeedu iska qaawaya keentaa laakiin dadka sawir keensaday wada xijaab leh macnaheedu waxa weeyaan waa soomaali 85% bay dhahaan kuwaasi waa kuwa kan maalan waxay yidhaahdaan iskuul islaamiya meelahan laga furay 85 qof baa dhigta bay yidhahdeen 81 baa soomaaliya bay yidhahdeen waa mujtamac markaa meel u socda 85 qof hadday dhigato 81 uu soomaali yahay waa mujtamac radicalkuu ka muuqdo iyaga nadaradooda waxay taagan yihiin iskuullada bay yidhahdeen haddii qadaayaadka ardadu ay ka dooda ee diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan lasoo bandhigo ama laga hadlo maalan violenceka ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalika baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaas aska afafka lagu dhigtay soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karinoo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsiisan waxyaabahaasi waxay yidhahdaan maalan umamka kale bay yidhahdaan markay ummad u yimaadaan inta badan waa la liqaa soomaalida se waxaanu aragnay bay yidhahdeen nooc min mintidnimo qaar aan xijaabnaynoo halkan xijaabka ku qaatay bay yidhahdeen tusaale ay markay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaabba sidan laakiin halkan unu ilaahay wuxuu ku fahamsiiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihiin waa cagsigaa markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeeda bay u socdaan ashyaadaasoo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca soomaaligii inuu yahay alwariiثu الsharci lilusuuliya dadkan usuuliyada la yidhahda ee radicalka dadka dhaxlaya ee xaqa u leh ee bahashaa daba taagan inay yihiin iyaga sida daraaddeed baa laga sheegaya mustashriqiintooda mid ka mid intuu khudbad jeediyay inuu kaga warramayay soomaaliga dadka la yidhaha inaanu qof gaala lahayn xataa buu yidhi shuuci ha ahaado liberalism ha waxa ha aaminsanaado meelun buu haddana bahashaa kaga sii naban yahay buu leeyahay waxay naga qaateen natiijo odhanaysa waa mujtamac mutafariqa haddaad istidhaahdo qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidh oo kala hadal ma jirto cid matasha waa iyagu siday u arkayaan 2,000 oo ururoo yaryar iyo 2,000 oo wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti odhanaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimuqraafigiisu kobiciisa badan bay leeyihin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sida daraaddeed bay maalan ixsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ixsaa'iyaad laga qaaday bay yidhahdeen 311 carruuraa muddo sanada ku dhashay xaafaddii
saddexda boqol iyo koob iyo tobanka carruur ee xaafadaasi ku dhashay muddo sanad gudihii 104 Soomaaliya dhashay bay yiraahdeen 107 ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 311 qof ku dhalatay 104 uu Soomaali noqdo 107 dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ihsaayaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhطaadeena iyo gafafkeena laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeena oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeena inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac ghayru marghuub midaan la rabin ama midaan la jeclayn aqallu ma yumkin ama mid la neceb yahay haddaba waxaan leenahay aragtida ilaa hadda laynaga qaatayna hadday taa tahay fama alxal waa maxay xalku dadku inta badan waxay kullu maskaxdiina ka guuxaysa dee xalka lama jiraan ninku wadankiisa qabto waa dhab iyagaaba yiraahda dabadu way fiican tahay bay dhahaan laakiin gurigaaga ka si fiican day dabadu fiican tahay oo qofku uu siraa dabada u dhoof dhoof inuu gurigiisa iyo wadankiisa uga si fiican qof kasta bini aadam waxaan leenahay mujtamacii hijroonayay ama guurayay waa gaar mujtamacan soo hadhaya ama meesha jooga maxaynu uga tagnaa maxaa uu u baahan yahay si uu noolaan karo ninkii guuraya waxaan leenahay guur fabiha wa nicmat laakiin u diyaargarow sidaad u guuri lahayd kow kan hadhayna gaalnimaha uga tegina sidaad wax ugaga tegi lahayd haddaba kan soo hadhay oo aniga ilaa hadda suuradda aan arkaya ay u badan tahay intii ugu badnayd muxuu noqon karaa xuluusha mustaqbalkooda wax ka ilaalin karta dhib bayna haysato Soomaaliyeed xaggaana dhib badan oo kale inaga furanayo Soomaaliya laakiin waxa aad u habboon inaynu tanna in badan isha gelino oo waxaynu ka qaban karnaa inuu ka qabanno xalka koowaad ama muqtaraxa koowaad shayga soo jeedinta koowaad waxa koowaad aan isleeyahay soo jeedi wuxuu yahay waxaynu u baahannahay tacaawun iyo takaatuf iyo tawxiid saf iskaash midnimo iyo kulan waayo kulanka iyo midnimadu waa la yaqaanaa waxtarkeedu intuu leeyahay nolosha waxa kaloo la yaqaano ee idin sheegaya galbeedku dimuqraadiyadda la ka jirta usul bay leedahay dimuqraadiyaddu ma cadaalad la iska wasaco saa dadka badmoodayaan usul bay leedahay in cid walba loo ogolaado xaqeeda inay dhacsan karto waa loo ogolaado laakiin hadday iyadu baylihiso cid uma doodo cid xaqeeda markaa baylihisa cid taloo tiraado war nimanka xaqooda la siiyo badani ma jirayso sida daraadeed waxa la ogolaaday cid waliba inay yeelato organkii xaqiisa u diriri lahaa ee u dagaalami lahaa waa waxyaabaha maqashaan niqaabaadka la yiraahdo organizations ururka dhakhtarada ururka dumarka ururka caynkan ururadani waa maxay urur waliba wuxuu ilaalinayaa masaalixda ummadani ay leedahay ummadda dhakhtar masaalixdeeda ururkooda uu ilaalinaya ururkooda baarlamaanku hadduu ku xadgudbo ka celinaya ururkooda dawladda hadday ku xadgudubto ka celinaysa ururkooda waxay xaq leeyihiin raadcaynaya ururkani wuxuu u dhisay inaanu dayacmin xaq dhakhtarku leeyahay sida daraadeed nin baa u heegana inuu xaqa dhakhtarka ilaaliyo waa urur jira ee ma aha intay ururada kale isu tageen ma odhanin war dhaqaatiirta xuquuqdooda la siiyo hadday dhaqaatiirtu iyaguba aanay xaqooda raadsanin